Bismillahirrahmanirrahiim. Halkan waxaan rabnaa inaan kaga soo gudbino dhammaan dadka daawanaya arrin ku saabsan baasaboorka. Saad aragtaan baasaboorka dad badan baa raadiya oo Soomaali ah. La bixitaankiisuna xogaa yar way dhib badan tahay. Marka hadda waxaa la soo saaray sharci ah baasaboorka saa u heshid inaad heshid national ID ama waxa la yiraahdo mustawaqiyaaga qaranka ama sidoo kale loo yaqaan fayda mutaawaqiya waa aqoonsiga fayda. Marka halka amxariga wuxuu ku leeyahay halkaas ka soo xigeen Ethiopress sibort passport lamawtaat fayda mutaawaqiya mayazi yigid honowal. Waxaa khasab noqotay qofku inuu haysto mutaawaqiyaga fayda la yiraahdo oo national ID-ga hadduu rabo inuu samaysto baasaboor. Kansaya wuxuu markaa uu sii socday wuxuu yiri kasanyo jamro fayda mutaawaqiya la passport agalgilot asfalagi ka hono sanadot markaa kala andu hono aantis siniinta laga bilaabo siniinta aan soo dhaafnay mutaawaqiyaga la yiraahdo fayda ama national ID-gu wuxuu noqday waxyaalaha baasaboorka lagu raadsanayo mid ka mid ah waxyaalaha ugu muhiimsan ee baasaboorka lagu xidhay. باسبور لما وطأت بكيري باسبور فايدة مياسي يكيد ياسفل ليغال الفايدة ديجيتال متاوقية ما مزكب عربية بميكين مزكب طابية id.gov.et/locations بمهد بما مزكب نا يتهمم QR هو إنا هالكا إسكديو إنجليزي بلي قفك هالكاس أيو لينكي كاسو كل فنايا تدمين شركة waxay ku soo dirsaa marka isdiiwaan gelisiin sawirka faraha iyo ama Ethio Telecom baad tagi kartaa message baa ku soo dhacay message-kaas baa ku soo dhacay beeraha mutaawaqiyaga agalgilotis fedbet ayuu waxaa muhiim ah inaad tagtid shirkadda kadibna way ku sameynaysaa oo ku soo saaraysaa isagoo print garaysan oo laf ah. Marka xafiiska macnaha dad sabab joogtid xafiiska laga helo yani beeraha mutaawaqiyaga agalgilotis fedbet wadami immigration nazeeginat agalgilotis fedbet kama hedaato bafit saasiri inta immigration ka aadin xafiiskaas waxaa la yiri national ID-ga fayda aqoonsiga fayda